difaacyadooda ugu weyn ayaa al-shabaab samaysteen deegaanka ruunurgood ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii isbuucan gudihiis laga farmaroojiyey masaajid cali guduud dagaalamayaashii kooxdaas ee ka baxay deegaanka masaajid cali guduud ayaa gaaray deegaanka ruunurgood waxaana la tilmaamay inay ka samaysteen difaacyo halkaas ee kooxda ku leedahay ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay deegaanka masaajid cali guduud oo muddo isbuuc ah ay isku horfadhiyeen iyaga iyo al-shabaab waxaana al-shabaabkii deegaankaasi ku sugnaa duqeyn xooggan kadib deegaankaasi ka baxay ciidamada ayaa la sheegay in haatan ay kaabiga ku hayaan deegaano hoos yimaada masaajid cali guduud waxaana la tilmaamay in saacadaha soo socda ay gaarayaan deegaano hor leh oo kooxdaas ay hor u joogtay dhammaan deegaanka masjid cali guduud waxaa difaacyo ka samaystay ciidanka xoogga dalka si gaar ah danab iyo gorgor oo maalmo ka hor halkaasi la wareegay waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in gulufkooda uu ku wajahan yahay deegaanada kale oo kooxda ay ku sugan yihiin al-shabaabkii ka baxay deegaankan waxaa la tilmaamay inay gaareen ruunurgood waxaana ilaa aanu ka helna warkan ay sheegeen in kooxda difaacyo iyo godad ay ka qoteen deegaankaas militariga Soomaaliya waxaa la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaankan ruunurgood iyo deegaanada kale ee ku xiran waxaana saraakiishu ay sheegeen in gulufkooda uu gaarayo degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe in ka badan 100 miino oo al-shabaab ay ku aaseen masaajid cali guduud ay ciidamadu ka saareen waxayna burburiyeen godad ay kooxdaas ay hor u qodeen isgaarsiintii deegaanka masaajid cali guduud iyo isu socodkii deegaanka ayaa dib u soo laabtay waxaana haatan deegaanka si buuxda u maamulaya ciidanka dawladda gulufka al-shabaab ee ka dhanka ah ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa la sheegay inuu sii soconayo waxaana ciidamada la tilmaamay inay gaarayaan maalmaha soo socda deegaano kooxdaas ay ku sugnaayeen in al-shabaab laga saaro masjid cali guduud waxay ku tahay dharbaaxadii ugu xoogganeed ee kooxdaasi ka soo gaartay deegaankan oo in ku dhow 10 sano ay gacanta ku hayeen militariga Soomaaliya wuxuu isku diyaarinayaa inay la wareegaan deegaano fara badan oo gobolka Shabeellada Dhexe ka tirsan sidaas waxa yiri mid kamid ah saraakiisha ciidamada oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidanka xoogga dalka al-shabaab ayaa culays ka dareemaya deegaanada gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe inkastoo waayadan uusan si xooggan u socon gulufka kooxdaasi ka dhana balse waxa la leeyahay markan ayaa boorka laga jafayaa dagaalka al-shabaabka ka dhanka ah kooxdaas oo looga saarayo deegaano badan oo ay ka joogeen gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka dariska laah ee Hiiraan